Dumarkeennii maanta waxaa ku batay xishood la'aanta. Waxay ka tageen xishoodkii dumarka lagu yaqaanay. Muusigay intay shitaan ayay waxay iska duubayaan muuqaallo. Waxay gelinayaan Snapchat-ka. Waxay soo dhigayaan Instagram-ka iyo meel walba bulshada isticmaasho. Ayagoo waliba cawradoodii ay qaawan tahay. Subxaanallah. Waxay ku tartamayaan ay iskugu faanayaan xumaanta. walaashaydii xumaanta ma ahan wax lagu tartamo ama wax lagu faano. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu quraankiisa ku leeyahay iqtaraba linnaasi xisaabuhum wahum fii ghaflatin mucriduun. waxaa soo dhawaatay waqtigii dadka la xisaabin lahaa ayaguna waxay ku jiraan qaflo iyo hilmaamsho. walaashaydii ogow waxaa soo dhawaatay waqtigii dadka la abaalmarin lahaa. waxaa soo dhawaatay waqtigii Allah subxaanahu wa ta'aala la hor istaagi lahaa. dadka maanta xumaanta kugu taageeraya ee ku sacbatumaayo oo ku leh hore u soco, wallaahi biri waxba kuuma tari karaan. qabriga kula geli maayaan oo su'aalaha kaaga jawaabi maayaan. aan dib u soo celino xishoodkii nagula yaqaanay. aan dib u soo celino edabtii iyo akhlaaqdii dumarka lagu yaqaanay. waxaan Allah subxaanahu wa ta'aala weydiisanaynaa inuu inoo soo hanuuniyo gabdhaheena dhammaantood. waxaan kaloo Allah subxaanahu wa ta'aala warsanaynaa inuu naga dhigo min alladhiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna ahsanah, kuwa markay warka dhageystaan ka qaata kiisa wanaagsan.